waalidiintoodana ay halkan ay joogaan caawo waxaan rabaa inaad ummadda Soomaaliyeed ee ogaato meel walba ay joogaan inay isku xiran yihiin waalidiintii waxgaradkii reer Toro in carruurta yaryarka ay soo koraysa dhalaankan maanta la isku dayayo sidii looga celin lahaa dhibaatooyinka maanta soo kordha xag kasta ay ahaataan sida dilka sida xabsiyaasha inaad nagala soo qayb gashaan Simco iyo Afro Kenya oo ku mahadsantihiin
Harvey, you want to pass it? Hey guys, turn around one time. adiga hudhudyow highwayga dul maree haweeye hadal ma iga gaarsiin haddii aad hadal iyo hasaawo doonayso hore u qaado hudud kaarka la yidhaahdo ileen hudud kaama dhammaadee hadalkuyuu kaa dhammaan hudhud بسم الله الرحمن الرحيم مركو روحا فرصتان ومهد علنا يا عبد الكريم عمر معلم وبساعد كبرنمو آدي يسود ويعاوة برنامج كان عيارها لوفرايو عرورتا لوفرايو عيارها كبدعة عرورتا وسكوي من سدح كوحود هلاع ورسيت يسمكي وبنادري كنتي وحان هلكان مركو مهد وين وعلنا يا والدينتي عرورتان دشي ورنتي آد سوح القامي sidoo kale macallimiintii ciyaarahan aad isku soo taxdiijiyay oo runtii ay hogaaminayaan dad ciyaartoydii hore ka mid ahayeen sida Xasan Maxamuud Xarbi Daahir Boodaaye Daahir Marshaale Jamaal Umri Barbe runtii halkan ku soo koobi kara runtii dad aad fara badan waaye macallimiin aad fara badan waaye runtii kaalin weyn ayay ka isticmaalaan waxaan leeyahay barnaamijkan halkan isku yimiday waa barnaamij aad u weyn oo loo dalnay yahay caruurta yar daadooda aad u yar tahay caawa oo jeedin halkan ka qayb galayaan saddex kooxood oo la isku dhaho African Canadian waxaan rabaa inaan arintan ka dhaho hal arin runtii fursad caawa oo arin aad muhiim ah in waalidiinta ay caruurtooda ku baariyaan sida ciyaaraha oo aad loo jecel yahay wadankeena hooyo noqdonaan mustaqbalkii Britole oo diyaarinayno runtiina waxaan kaloo rabaa inaan soo gabagabeeyo hadalkayga oo aan halkan soo koobayo inaan u wadacsho hornimo website oo Cabdi Kariim Cumar Macalin oo aad maasan fursada qaaligiisa assalaamu calaykum adiga hudhudyow highwayga dul maree haweeye hadal ma iga gaarsiin haddii aad hadal iyo hasaawo doonayso hore u qaado hudud kaarka la yidhaahdo ileen hudud kaama dhammaadee hadalkuyuu kaa dhammaan hudhud السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاو waxaan joognaa iskuulka Queen's Drive 490 oo ciyaaraha ka bilaabanayo Afro Canadian oo xilliga qabowaha oo sanad walba aan qabano ay isku yimaadaan kooxaha Afro Canadian ay kamid yihiin Hilaac, Samkey iyo Naadiga Horseed. kooxahaas oo isku tagay inay ummadda Soomaaliyeed ee dhalinyarada ah yarka meesha ku nool inay wax u qabtaan sanad walba markii la gaaro xagaaga iyo markii la gaaro kuleelaha. caawo taariikhda ay tahay in Friday, in Saturday, December the 12th. December 12 ralliga hada soo caaw meesha ciyaaraha ku bilawnay waxaan ciyaarta furay Muxtaar Maxamed oo taqaaniin ciyaartoyga weyn ee qaranka Soomaaliyeed runtiina wax ku dayasho mudan waxa kala joogay dad badan oo ka soo qayb galay anoo wax yar ka faaloonayo oo ku bilaabaya kooxda Hilaac ee meesha aas-aastay ciyaaraha Soomaaliyeed ee yaryarka waxaan meeshan ugu tahanideynayaa walaalkay Daahir Xasan Xuseen Marshaale oo in badan xoogiisa iyo waqtigiisa geliyay ahaana laacib Soomaaliyeed ee qaranka Soomaaliyeed u soo ciyaaray wax fiican u sameeyay
waxaa kaloo jooga daahir boodaayo oo ahaa ciyaartooy asigana oo qaranka soomaaliyeed ee usoo qabtay soo leeliyey kooxdii qaranka ee soomaaliyeed jamaal yare oo hadda gacanta ku hayo iyo cumar oo guddoomiye ah iyo xasan iyo saadiq oo marnaba laulooban oo marwal wala taagan haddaan usoo jeedsan dhinaca samkii waxaa meeshaas joogo waa anwar taabid oo hogaaminayo waxaa kaloo jooga ninka la dhahayo cumaray baardo oo ciyaartooy soomaaliyeed oo walo ciyaari jiray kooxda jenyo LLBB oo asigana meeshaan xaadir ku ah ciise oo sidoo kale wali usoo ciyaaray axmed john iyo xasan oo caawa jooga meeshaan iyo dhammaan waalidiinta kasoo qaybgaleen anoo xagga u leexanaya kooxdeeda naadiga horseed ee caawi iyo maalin horseed oo aniga ah hogaaminaya xasan maxamuud xarbi ah oo naadiga horseed kabtan uu ahay waxaa gadaasheeda joogo waa nin la dhahayo محمود محمد أحمد دورة iyo آدم سلاد فاروق إبراهيم حسن كوجشك عبد الحكيم iyo بشير iyo حرسي وفي iyo كوتش إيمان ورنتي أتاجن إني المهاسي عموما إن مرة والبن أتاجين إنه هو قبطان مرة وحلا سوماليا معلوم والبن أتاجن المهودنا نقدر كنقدر ملك استقرار محل ما أنت رجينا إن المهنة labaatan sano soo dhaafay dibka ay ku jireen aan kaga baxno maanta horumarka wax kasta waa la gaaraa dib kasta waa dhaca laakiin maanta ma hadda ilaha iskale ilmaheeni inay isu yimaadaan hal meel ku ciyaaran waa ka shaqaynay waa inoo suurta gashay maamulka iyo macnaha african waxaan leeyahay hawsha aad ku mashquulsantihiin waa wax aan la heli karin marnaba yaa laga baaqan waxaan halkan ugu hambaleynayaa kooxda hilaac oo runtii ka tirsan african oo ciyaarahan bilaabeen inay australia u socdaan horumarkaas la gaarana wax aan la heli karin ayay macnaha muujinaysaa waxaan kaloo halkan ugu mahad celinayaa maamulaha mulkiilaha ee macnaha hudud cumar maxamuud cumar gombe oo runtii ah nin u taagan mar walba Soomaalida ilmaha yarka horena u sheegay kaar walba ee aan gadana Afrika $5 ee hudud ah inay ku leeyihiin ilmaha Soomaalida ee ku nool magaalada Toronto $1 si dharkii loogu gado anoo hadda caawa ugan fanaanada hudud waxaan leeyahay cumar aad u maasantaa sida sharafta leh ee macnaha ummadda Soomaalida ugu taagantahay sidoo kale afayeenka naadiga horseed aan marnaba aan iloobin oo garabkeena joogo cabdiqani wehliye waxaan leeyahay oo kuma cadheer taysan oo runtii marnaba hudud aan ka harin iyo ciyaartooyda qaasatan naadiga horseed waxaan leeyahay adiga sharaftii buntland aad ka samayso horseed marnaba ma iloobay waxaan halkaan ku soo gabagabinayaa meediyaha macnaha horseed taagan cabdikirin yare iyo dhammaan macnaha dadka fiirsanaya saxaafadda Soomaaliya ciyaartooyda hore Soomaaliya waxaan leeyahay aad u mahadsantiin waan ku sharfantiin salaamu calaykum ورحمة الله وبركاته. adiga hudhudyow haywayga dul maree haweeye hadal ma iga gaarsiin haddii aad hadal iyo hasaawo doonayso hore u qaado hudud kaarka la yidhaahdo ileen hudud kaama dhammaadee hadalkuyuu kaa dhammaan hudhud السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. مجاعيق واحد لينا حاج عيسى. مركو ورث وحنوهم عن مهد إلها إسكالة. مركل لبعض وحنو مهد علنا يا ويب سايت كحرنمو ولا الكين عبد الكريم. سيدا في عن ولا صعود دقائق عيارها وحيابها بالشدة الصومالية الجديدة ماتي سوي معنا ين. هدي أن نقضي عاو وصابت ماشى من سوون نمد. وحن سوون نمد عيارها وصمد وبحلق عن قبلنا. ciyaarahan oo sanad walba aan qabano iyaga oo maaragtay ku joogtana waa isugu nimaana sanad kasta yani ujeedada aan ugu imaanayna aan isugu nimaanana waxay tahay carruurta aan hayno oo aan tababarno si ay u helaan is-arag bulshadeed oo waalidiinta iyo dadku ay meeshan aan ku badbaadino ilaaha wax badbaadi kara carruurtaas laguna dhaqankoodii iyo asluubtoodii iyo in mataqaanaa lagu ilaaliyo waxaa ka soo baxay ciyaartooy aad u wanaagsan oo talentiya oo xataa mustaqbalka laga yaabo inay kooxo kale aadaan runtii hawsha noocaasa oo hawl aan sahlanayn waxaa aad nooga caawina waalidiinta oo iyaga naftigooda u taagan ilmahooda inay daba galaan oo ay la socdaan oo ay mataqaanaa ciyaaraha ku dhiirigeliyaan barnaamijkaas oo aan rajeynayno haddii ilaahay yidhaahdo intii aan awoodeenna inaan wadno oo saa u socdo waxaan mar labaad u mahad celinaya walaalkeen cabdikariin iyo website-ka xornimo oo iyagu markasta u taagan wixii dhaqdhaqaaqa oo maaragtay ciyaartooyda ay sameynayaan macallimiinta asagana naftigiisu u yahay laacib hore maaragtay oo wixii talaa xataa aan mararka qaar weydiino marka saasaan maaragtay aan ugu faraxsanahay caawa inuu meeshaan nala joogo oo maaragtay hawshaan nala wado
wabillahi tawfiiq. adigaa hudhudyow haywayga dul maree haweeye hadal ma iga gaarsiin haddii aad hadal iyo hasaawo doonayso hore u qaado hudhud kaarka la yidhaahdo ileen hudhud kaama dhammaadee hadalkuyuu kaa dhammaan hudhud. السلام عليكم مقعي إيمان نور محمود واي وحنا هاي كوتش كهرسال ميت كميدا وحنا توبرا U12 U10 مناسبة دعوانا وحواي أفريقيين هوريال كده وينتر كأو بلعبنايو ماشان وحنا كل من دنا إن شاء الله وينك صعدة كواحد سمكي يو هلا عديلا يرال كنقضو مركا سودو هذا رمانتي ciyaarahan oo caawa meeshaan ka bilowday run ahaantii Afro Canadian ujeedadoodu maxay tahay inay u qabtaan ubadka Soomaaliyeed ujeedadu koowaad waxa waaye in ciyaalka Soomaalida in la siiyo structured wax la dhaho football training ilaa hadda waxa waaye Afro Canadian waxay isku dayaysaa ciyaalka Soomaalida inay u yeesho meel intay tagaan oo lagu tababari karo kubadda cagta ayagoona feel gareynayna inay outsider ka yihiin dadka la joogaan baahida loo qabo inay Soomaalida ay gacanta ciyaalkooda wax ku tababaraan ay soo saaraan insha Allah aan banooni kaliya inay u soo baxaan ma waa in aan ka dhignaa rag iyo ummadooda wax u tiri kara berito banoonigana wuxuu kamid yahay waxyaabaha ugu muhiimsan oo sports gaar ahaan oo ciyaalka wax lagu bari karo waxyaabo ugu fudud ciyaalka oo jidka toosan lagu tusi karo oo kamid yahay diinta markii laga soo bilaabo sports ka kusoo marka anaga volunteer waxa uu nahay arintaas iyo banoonigii aan soo ciyaari jirnay iyo banoonigii aan soo ciyaari jirnay iyo sidaan anagu ugu soo ciise iyo ugu soo faraxnay kubadda soo ciyaarnay in ciyaalkan aan tusnay inuu banoonigaas jiro marka insha Allah oo ku dadaalayna rag badan oo waxa jiro oo iyagoo lacag lagu siinin volunteer waa waxaan ahweynii maalin marka raggaasaan ka midnahay insha Allah bari kamaalna anaga waxaan ugu fulan ciyaalkaas oo rag ummadooda iyo dadkooda maaragtay ka dhex muuqdo si wanaagsan oo lagu soo qaadan headline-yada oo newspaper-rada iyo TV-ga aad waxaan ugu mahadcelinayaa samkay oo caawa meeshaan ugu casuuntay oo furitaankii Afro Canadian waxaan kaloo mahadcelinayaa tababarayaasha Hilaac Mashaale magaciisa Jamaal Umar Daahir Booday waxaan mahadcelinayaa Anwar oo samkay ka socdo iyo Umar iyo Ciise iyo inta ila tababarta ciyaalka horseed oo laga soo bilaabo Xabbi ninka la dhaho Xirsi Cabdi Hakiin iyo محمود دور oo coachka horseed ah marka dhamaantood iyo waalidiintood dhan aad aan u mahadcelinayaa meeshaan ciyaal badan aan ku haynaa marka ma sha Allah ilaahay uu garab galo assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh adigaa hudhudyow haywayga dul maree haweeye hadal ma iga gaarsiin haddii aad hadal iyo hasaawo doonayso hore u qaado hudhud kaarka la yidhaahdo ileen hudhud kaama dhammaadee hadalkuyuu kaa dhammaan hudhud. bismillahi rahmaani rahiim magacayga waxaa la yidhahdaa Anwar Thaabit marka hore Allah mudan marka xigta waxaan mahad u celinaynaa dhammaan xornimo website oo kaalin weyn ka qaadatay ciyaarihii furitaanka Afro Canadian maanta oo ah maalin sabti ah taariikhdu 12 December 2015 waxaa ciyaar si sharaf lagu bilaabatay magaalada Toronto waxaana ciyaar wanaagsan kusoo bandhigay labada koox samkay oo aniga mas'uulka coachka ah iyo dadka Ciise Axmed Umar Barber qaar kale Xasan Bangaari thanks to Allah waa si nabad mataqaana ugu dhamaatay again waxaan mahad u celinayaa waalidiintii samkay
iyo dadkii ka soo qayb galay madaxdii ciyaartooyda hore ahaatee dadkii seniorka ahaadan dhammaan way ku mahadsan ayagana waana mahadsan adiga hudhudyow haywayga dul maree haweeye hadal ma iga gaarsiin haddii aad hadal iyo hasaawo doonayso hore u qaado hudhud kaarka la yidhaahdo ileen hudhud kaama dhammaadee hadalkuyuu kaa dhammaan hudhud السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومالين سبت ديسمبر 12 2015 waxaa caawa halkan ugu furmay ciyaarihii qabobaha ee aruurta yar oo ay soo qaban qabayeen Afro Canadian tiimankooda kala ah ila Simkey iyo Horseed ciyaarada under 10 under 12 ka oo caawa halkan rankan weyn oo Simkey ay martigelisay caawa halkan ka bilowday waana farxad aad iyo aad weyn waxaan meeshan aad iyo aad mahad ugu soo jeelinaynaa ciyaartooyda dhalinyarada yarka soo baxay coacheskooda iyo waalidiintooda oo waqti fiican iyo waqti wanaagsan geliyay oo caruurtooda meel fiican ku hageen waxaan aad iyo aad dadweynaha sharafta magaalada Toronto degani aan ugu wacyigelinaynaa inay ku daysadaan caruurtaasaas loo ilaalina waxyaabaha xunka waqtooda saas loo gelinayo inay waalidiinta ku daysadaan waxa maasha halka ka dhacayna maanta waa ciyaar aad iyo aad u xiiso badan oo ilaa xilliga qabowga dhan ay ka dhamaadaan socon doono waqti xilliga ku guuleystana كل دبي عن سكشك دونا لكن ما أنت ما شاء الله عياري هالكان يكون بلاودين وأنا صعد دونا إلا يقوى يكرم رمضان وأنا مع صندهاي من ويب سايت كنا هالكان يقولون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا جوا سيد عمر معلم هورسات معلمين هورسات كجرا عيرتو إذا المها وحدا تريني كسيو إن شاء الله إلهي ونوفذ ذي كل واحد شيء له وحاملنا مع الموسى الشاقي marka waa kaas sanadkiisa ilaahay dheer anu gaarsiiyo waan sharkeena dadaal fiican meeshana ka sii wadayna website-kan aan laga daawanaysiina waa website xornimo. Assalaamu calaykum Soomaalida meel kasta joogtaan waxaa caawa halkan si sharaf leh u bilowday ciyaaro ay soo qaban qaabiyeen Afro Canadian oo ah dhalinyaro coaches iyo maaragtay isugu jira mutacalimiin iyo waalidiin oo tababaraya caruurta yar ee magaaladan ku soo barbaaraysa khaasatan ummadka Soomaaliyeed iskuna dayayaan inay ka badbaadiyaan xaaladaha soo koraya hab wanaagsan oo maaragtay ku barbaari lahaayeen caruurta ku soo barbaaraysa wadankan Canada sidaan ognahay caruur badan oo Soomaaliyeed ayaa waxa ka soo gaartay dhibaatooyin badan khaasatan maadaama ay jirtay ururo dari awgeeda oo daryeela caruurta balse waxaad u malaysaa sanadada dambe inay soo kordheen dadka daryeelaya ama raba inay ka shaqeeyaan wanaaga ama sharafta Soomaaliyeed waxa aad iyo aad caawiye mahada inaan ka soo qayb galo aan siiyo fursad dhamaan odayaashii waalidiintii waxgaradka iyo ciyaartooydii hore ay barsimaadka ee retire garooday oo maaragtay ka baxday inay maanta caaw halkan isugu imaadaan dhamaantoodana ay wada muujiyaan midnaan ay tusinayaan ummadda Soomaaliyeed inay u taageeraan caruurteeda yar ee ku soo barbaaraysa aniga ahaan khaasatan cabdikariin aad baan ugu faraxsanahay inaan kaalin ka qaato qaybtan waxaan rajeynayaa hadduu aalidmo inay kaalintan ay wadaan iyo ururkan muhiimadda ay wadaan inay hirgasho waalidiinta meel walba ay joogaan Soomaaliyeedna ay taakulaan ururkan iyo waxa ay wadaan wanaagooda waxaan filayaa in dhalinyartan yar ay maanta la badbaadin doono hadduu aalidmo ayagana sidoo kale inay u qabtaan maadaama ay yihiin kuwa ugu horeeyay oo wadankan ku farcami doono ayagana waalidiin noqon doonaan inay taladan qaataan ayagana tusiyaan ubadkooda dambe hadduu aalidmo sidii uusan u dhumin culture-keeni ama diinteeni sidaysan u dhumin waxyaalo badan oo maaragtay cadeynaya shakhsiyan waxa aan ahay anaga ummad Soomaaliyeed iyo inaan ahay dad Islaamiyeed waxaan filayaa inaan rabno inaan ku barbaarino caruurteena wixii wanaag ah marka Soomaaliya dhamaan meel walba joogtaan waxaan filayaa inaad ka soo qayb gashaan aad caawisaan ururadan Afro iyo ciyaaraha ay soo qaban qaabiyeen ayagoo muujinaya inay hal isla yihiin caruurta yar u soo wada jeedaan waad ku mahadsantihiin meel walba joogtaan Soomaaliya. adiga hudhudyow haywayga dul maree haweeye hadal ma iga gaarsiin haddii aad hadal iyo hasaawo doonayso hore u qaado hudhud kaarka la yidhaahdo ileen hudhud kaama dhammaadee hadalkuyuu kaa dhammaan hudhud